السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada Tam Graphics. maanta cashirkeen lixaad waxaan ku baran doonaa waxa loo toolbox. ugu horreyn softwarekeen noo soo kici labadii qaab isku ogeen amaraysa hadda project cusub bilaabaysid new project mid hore haduu ku furnayna open project soo dhah anaga qaybta resettiga noo yaala Adobe Premiere Pro markaa isticmaalaysid tools haddaa maqasho asaga intaan uu leeyahay toolska aa maqasho waa intaan meesha ku taalo marka toolskan si aan u sharaxno muuqaalaha meesha soo gasho doonaa muuqaalkan naga daleed aad u dheer yahay muuqaala gaagaaban noo soo geli marka dhammaan ayaga dhan soo geli okay toolka ugu horeeya aan sharaxi doono waxaa la selection tool shortcutkiisuna waa V toolkan waxa uu ku qabanaa laba shaqo midda koowaad oo waxbuu ku select gareynaa tusaale waxaa rabtaa muuqaalada timeline-ka ku yaalo mid ka mid ah inaad doorato marka shaqaas waxaa kuu qabanayo selection toolkan tusaale hadda waxaa sameynaynaa muuqaalada mid ka mid inaad dooranaa rabnaa kaliya waxaa sameynaynaa click doorsada mujada uu noo dooraa click muuqaalka rabtid click asiina uu ku dooraa midda labaad waxa uu ku qabanaa move inuu wax ku dhaqaajiyo oo inaa muuqaalada dhaqaajiyo meesha rabtane aad geysato sidaan camal waa qaada xagga geena waa soo qaada xagga geena marka shaqadan sidoo kale asagana move-ka waxa ku qabanayo qaybta selection toolka inta sidaa ugu soo gudubno toolkii ugu xiga hadana asaga waxaa lahaa track select forward ee mid kale ku sii gudu jira lahaa asagana track select backward haddaan ku sharaxo marka tusaale waxa timeline-ka ku yaalo muuqaalo badan sida kuwan camal marka waxa rabtaa inaad highlight gareyso tusaale awal waxa dhihi lahayd saan oo soo highlight garey lahayd hadda inta jooga muuqaalkan wixii ka dambeeyay inaad highlight garey hadaa rabo qaab manual caadi gacanta ku highlight gareysa lahayd soo asaga bedelkiisa marka hada tusaale muuqaal kala kor noo dhig saaca ma loo dhig marka kana jooga muuqaalkan wixii ka dambeeyna highlight garay hadaa raw saana dhihi lahay marka intaasas dhihi lahay waxa shaqadaas noo qabanayo track select forward tool oo shortcutkiisu yahay a hadaa soo doorno inta aad taabano aad click siiyo dhammaan wixii kan inta ka soo jiro uu noo wada dooraa isla sidaas bilcagsi tusaale kana jooga waxa raba wixii ka dambeeyay inaas highlight saaro waa riixee marka riixdid haddana waxaad dooran doontaa track select backward tool asagana shift a aan lahaa marka highlight ka qaad horta noogu celi asaga soo dooro kadib tusaale intaad joogtaa waxaa rabtaa wixii inta ka dambeeyo inaad highlight saarto falaartu jeedsamay mujeedido click asiina dhammaantooda highlight war saare okay hal arrinaa jirta marka labadan tool waxay kuwa highlight gareynayaan dhammaan muuqaalada track walba uu saaran yahay marka si hal track muuqaalada saaran aad u doorato kaliya toolka doorataa waxaa la qaban doontaa shift hadda move toolkeen ugu soo laabo intana keen taraagan mujada intaan muuqaal saaran inaad doortaa raba kaliya waxaa soo dooranaa track select forward-ka labada falaar mujado laba falaar meeno haday shift hadaa la qabto muxuu noqonaa hal falaar kaliya siina sadarkaasoo noo doore isla sidaas hadaa kan aad soo doorno inta usoo jeesano shift ala qabto click asiyo wixii inta ka jiro soo dooraa marka toolkan sidaas ugu gudbeynaa toolashan inoogu xigo waxay ku wada jiraan hal box qaybtan ku wada jiraan waana saddex tool toolka ugu horeeya waxa lahaa ripple edit tool shortcutkiisana waxa lahaa b tusaale muuqaalka rabtiina jarto marka jartana waxa meesha soo galay space tusaale kuwan kor iga daleed tusaale muuqaalkana jareena fiiriya muuqaalkan marka inta soo sikino meesha waxa soo galayo space oo jeeda Soomaa marka si manual ah space-keena ka bixin hadaa rabne waxa dhihi lahayn saana oo soo sikineena marka adoo wadadaas dheer aan soo marin kaliya waxa adeegsanaysaa toolkan le waa soo dooranaysaa marka soo doorato muuqaalka meesha aad ka jar lahayd aad ku jiide tusaale saana leeyahay inta soo jiida automatic mujada kan inta soo jiida uu soo dabaraaca that's it intaas waa kan kale ku xigo asagana waxa la rolling edit tool shortcutkiisana ana lahaa asna tusaale noogu soo qaad move toolkeen noogu noqo inta space-ka ka soo bixi waxa rabnaa inaan muuqaalkan aan dheereeno kan kaleetana aan gaabino ayriiska hadda meesha nooga bixi muuqaalkan gaaban inaan dheereena rabnaa kan dheerkan inaan gaabina rabnaa marka inta qaab caadi u kala sikin lahayn waxaad dooranaysaa toolkan waa riixaysaa rolling edit tool aad dooranaysaa kadib kaliya sidaana dheesa marka waa soo sikinaysaa inta keenaysaa soo ma jeedid waa intaas kaliya asagana shaqadu ku qabanaa inaad fahanteen arjeena inta toolka kale uu ku jiro
waxaa la rate sketch tool toolkan wuxuu ku qabanaa asagana inuu muuqaalada speed ku furo ama slow motion uu ku furo tusaale hadda muuqaalkan aad ujeedid aa soo doorno asaga aa soo dhaweyn inta ka qabana inta soo dhaweyno muuqaalka hadaa daarno speed uu ku furo doonaa fiiri soo ma jeedid qofka gacantiisa fiiri muuqaalka speed aa ku furan sidoo kale sidiis noogu soo celi muuqaalkan qaybta ugu dambeysa clip ka jaranay waxaa rabnaa inaa qaybtaas ugu dambeyso aa dheereeno oo slow motion aa ku furno asaa soo dooraneynaa gadaal u jiideynaa muuqaalka hadaa shidna fiiri tartiib u soconaa minis slow motion uu ku furnay asagana toolkan hoos noo qabto waa fahanay sidoo kaleeto toolkii noogu xiga waxaa lahaa razor tool shortcutkiisana CY asaga waxaa loogu talagalay inuu muuqaalada noo jarjaro tusaale inta hadaad click siino waa kana inta click hadaad siino soo ma jeedid muuqaal inaad jarjarata hadaa rabto razor tool lahaa CY shortcutkiisa intaa imaanaysaa cut aa dhehe ujeedaa cut aa leedahay cut markaa muuqaaladaasaan u jarjarno tusaale muuqaalkaan aa jarnay intaan yarta inaan iska bixinaa rabnaa calaamada keyboardka waxaa ka taaban karnaa delete kabacdina meeshaan right click aa dheheynaa ribble delete aa dheheynaa sidoo kaleeto anagoo kan deleedin asagaa right click taa dhahno ribble delete le taabaneynaa wuu deleedaa meeshii oo banaaneedna uu isku soo xiraa sidoo kaleeto kuwii haddana waa adeegsan kartaa ribble edit tool iyo rolling edit toolna waa adeegsan kartaa sida hadda usoo qaadan oo kaleeto toolka waa fahanay oo lagu jarjaraayo muuqaalada oo ujeedaa soo maaha muuqaalada saana ugu jarjaray waa dul saaray meesha aragtida dul saaray waa jaray click la siinay sidoo kale tuulasha kuwa loogu isticmaal badan yahay aad u sharxi doonaa meeshaan sidoo kale waxaa ku jiro markaa furto pen tool rectangular tool iyo ellipse tool kuwaan waxaa lagu sawiraa tusaale pen toolka hadaa soo qaadano shaashadda saa ujeedid saana wax ugu sawiree soo ma jeedid saasaa ugu sawiri kartaa kanaad tusaale waxaa usoo qaadna pen toolka waaye box walbo isku jiro inaad furtid hadaa rabtid right click hadaa dhacdo makuu furmaayo asaga waxaa samaynaysaa left click adoo sida meesha riixe uu soo boodaa boxka wixii ku dhex jiro rectangularkana sidoo kale waaye asagana waa kanaa hadaa markaa soo furto ellipse toolkana waa kanaa waa kaasaa ellipse toolka marka mujeedaa uu kaa qalqaloocanaa si uu kugu tooso waxaa la qabanaysaa shifti wuu toosaa markaasa ujeedid qaybta saas uga soo gudubnay qaybtan kaleeto waxaa ku jirto laba tool toolkan waxaa lahaan tool HY shortcutkiisa hadaa ku dhufano tusaale inta zoom noo soo dhah 75 camal dhah ama 50 dhah inta markaa zoom soo dhahno tusaale inuu saan noogu wadwado mujeedo hadaa graphic design wax ka taqaana Photoshop Illustrator Adobe Premiere Pro waa fahansantahay kan saas waaye midka kale ku dhex jiro asagana zoom waaye zoomkan wuxuu soo zoom gareynaa qaybtan timeline-ka inaa click markaa dhan ujeedaa wuu soo zoom gareynaa aad uu soo zoom gareynaa zoom in waaye zoom out inaa dhaq hadaa rabtana outyaa la qabanaysaa click gadaal uu soo celinaa zoom out uu sameynaa soo ma jeedid zoom out uu sameynaa qaybta ugu dambeysane toolkeena ugu dambeeyo asagana waxaa la type tool asagana wuxuu ku shaqo leeyahay qoraaladii waxaas intaa click ku dhehe qoraalka rabtaa ku qoranee soo ma jeedid qoraalku asagana waa kana qoraalkaaga ina hagaajisid hadaa rabtid qayb waxaa jirta window waa tegeysaa waxaa soo gashan doontaa essential graphics qayb la dhaho qaybtana qoraalka waxaas laga hagaajistaa qaybta edidaa sii tege qoraalkaaga click siine waa kana qoraalka fartiisa intaa laga bedelaa fartaa rabtaa soo dooranaysaa marka intay ku jirtaa markaasaan usoo doorato regular waxay tahay intaa ka bedelee farta cabirkeeda waa kana intaa laga bedelaa center inaa geysa direct saas waaye hoos hadaa imaato boldi inaad jiif ka dhigto waxaasoo dhan qaybtan kore fiilka waaye gudaha kalarka waaye soo ma jeed qaybtan kaleetan stroga waaye inay farta strog lagu yeelo kan kaleetana background waaye kan kaleetana shadow waaye farta iyo qoraalkeeda iyo textiga intaa laga saxaa essential graphicska soo tooliska intaana ugu muhiimsan ugu dambeyn waxaa rajeynaa inaad fahamteen dhammaan tuulyada toolbox hadaa maqashidna waa intaanoo dhan waaye cashirkeena maanta halkaan noogu egyahay waa maasantiin dhammaantiina waxaa noo balanaa muuqaalkan muuqaal ku xigo